barnaamijkan waxa uu noqon doonaa falanqeeyaha hadba marxaladda uu fanka Soomaalidu taagan yahay iyo dhacdooyinka ku soo biira. Waxa uu qiimeynayaa fanaaniinta heesaha iyo muuqaalada ay soo saaraan. Waxa uu soo saari doonaa heesaha ku awood bata dhinaca suuqa daawashada iyo shaxda howladu soo dhigaan. Kabtanka fanka Djibouti Cawaale Aadan iyo laacibada Amni Afrika ayaa socdaal lagu soo shiraacday wadanka Djibouti oo fankoodu ka soo bilaabmay dhalashahaana labadooduba ka soo jeedaan. Cawaale Aadan waa markii ugu horeysay ee wadanka Djibouti soo caga dhigto tan iyo intii uu qurbaha u dhoofay. Cawaale waqtiyada qaar waxa uu mucaarad dawladda iyo madaxweyne Geelle ka soo horjeeda isagoo wadanka Canada ka soo dhalili jiray siyaasadda Ismaaciil Cumar Geelle, balse muddooyinkii u dambeeyay waxa uu bedelay fikirkiisa mucaarad. Waxa uu bogaadiyay dawladda iyo madaxweyne Geelle. Waxa uu qiray in Djibouti horumar laga siraaday, waana arrimaha soo dedejiyay socdaalka Cawaale Aadan oo muddo 8 sano ah ka maqnaa wadanka Djibouti. laacibada Amni Afrika oo Ingiriiska ka soo duushay ayaa ku soo horeysay wadanka Djibouti. waxaa loo sameeyay soo dhaweyn sareysa maalmo kadibna waxaa kasoo daba duulay Cawaale Aadan oo fanka Djibouti iyo kan Soomaalidaba aad looga yaqaano. Cawaale waxa uu la kulmay soo dhaweyn ashqaraar ah, bulsho u xiistay iyo fanka Djibouti nidaam heer sare ah ay ku soo dhaweeyeen. arrimaha labada fanaan u socdaan ayaa lagu sheegay soo nooleynta fanka Djibouti iyo sidii barnaamijyo kala duwan ay halkaas ugu qaban lahaayeen. horta aad baan idinka mahad celinayaa bahda idaacadayda TV-gayga RTD bahda wariyayaasha iyo dhammaan maamulayaasha iyo shaqaalaha oo dhan aad baan idinka mahad celinayaa. soo dhaweynta sharafta badan ee ii fidiseen ee hotelka igu timaadeen waa idinka mahad celinaya. runtii horta shucuurteydu waa wadanka waan ku faraxsanahay, heerku maanta taagan yahay, bulshadu say isku dhex jirto aad baan ugu faraxsanahay, waan uga mahad celinayaa. madaxweynaha dalka iyo dhammaan xukuumadda waan uga mahad celinayaa. madaxweynaha dalkana waan ku hambalyeynaya runtii dadaalkaas ilaahayna la qabtay, waan uga mahad celinaya, waan ku hambalyeynaya. marka xigta imaatinkayga runtii imaatin igu qaaliya ayuu ahaa. imaatin wuxuu ahaa aan in badan ba sugayay, maalin aan in badan sugayay ayay tahay maanta. dadkii ii imid gagada diyaaradda imid runtii waan aniga dhanbe qaadawaa igu noqotay intay dadku la ekaayeen. runtii waan uga mahad celinayaa. waxaana leeyahay saad ii soo dhaweyseen, eed ii karaamayseen, eed ii sharafteen, eed ii weynayseen, ilaahay ha idin sharfo oo ilaahay ha idin weyneeyo oo ilaahay ha idin karaameeyo. shucuurteeduna de korkorley aad ba u kacsata kulli hadal kuma soo koobi karo. qofku bini'aadankii geed maaha oo ma baxo dhulka kama soo baxo, bulsho ayuu ka dhex dhashaa. runtii bulshadayda intaan ka maqnaana deed waxaan ahaa kalluun biyaha ka maqan, maantana kalluun biyihii kusoo noqday ayaan isku arkaa. runtii inaan bulshadayda la dhaqmo, ku dhex noolaado, waxay qabaan la qabo, halka wadanku u socdona aan noqdo inaan kaalintayda ka qaato. kulley himilooyinka ilaahay u aqbalay madaxweynaha dalka xaaji Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa xaajiyo Khadro Maxamuud Xayd. runtii kaalmahaas ay wadanka kasoo qabteen inaan anaguna dee qaybteeda qaadano maadaama marka hore dhammaan dalka iyo shacabka dhammaan wala salaamayaa. waxaa kaloo salaamayaa shacabka sharafta leh sida sharafta leh igu soo dhaweeyay dalkayga iyo ciidayda hooyo. waxaan salaamayaa oo salaam qaali aan u dirayaa madaxweynahayga qaaliga marwadiisa Khadro Maxamuud Xayd. dhammaan waa wala salaamayaa baarlamaanka, dowladda, milatariga, dhammaan anoona soo kala anoona xabxabada aan u sheegayn dhammaan salaam qaali aan wala dirayaa. waxaan kaloo salaamayaa waalidkayga, hooyaday, aabahay, caruurtayda, odagayga, walaalahay salaan gaar ayagan u dirayaa. waxaan kaloo u hambalyeynayaa idaawo Djibouti oo mar walba noo heegan oo noo sarow taagan. haddaan fanaaniin nahay reer Djibouti meel kasoo joognaba waan u hambalyeynayaa. magacu la baxayna oo magac qaaliya, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa idaawo Djibouti. waad mahadsan tahay. caruurtayda wallahi ma soo koobi karo, aad iyo aad baan u faraxsanahay. maasha Allah aad baan u faraxsanahay. shacabkaygana aan aad ugu faraxsanahay. shacabka reer Djibouti ha noolaadaan. waxaan kaloo salaamayaa ambasadkayga Dubai noo fadhiya, si gaar ah u soo salaamayaa, oo weyn baan u soo salaamayaa Cusmaan. boqorada dhanxiirka fanaanada masraxa aan dayaxeedu dhicin Farxiyo Kabayare ayaa iyaduna muddo badan kadib waxay ka degtay magaalada Muqdisho
oo aanay dhaaya saarin sannado iyo sannado. Farxiyo Kabayare dhowr jeer oo ay damacday inay Muqdisho ka degto bandhig faneedna ku qabato fanaaniin kale ayaa booska ka cidhiirsaday, taasi oo sababtay inay muuqaal ku cambaarayso shakhsiyaad ay sheegtay inay ka dambeeyeen in Muqdisho laga awood bato bandhigeedana kala kiciyey. Farxiyo Kabayare Muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyey, shacab iyo fanaaniinna looma kala hadhin. Waxay wadaa oo waddanka Maraykanka ay uga soo boqoshay showga sanadka 2019 ay ku dhigayso magaalada Muqdisho. waxaan maanta ilaahay mahadiisa oon hambalyo leenahay oon ku soo dhawaynaynaa gabadheena Farxiyo Kabayare hilow ay dalka u qabto dartiis. waxay tiri airboortka haddaan ka tago ilaa aan tiyaatarka arko ma hurdaayo caawa. aaday u mahadsan tahay, waa ku soo dhawaynaynaa. bulshadan aday ku sugaysay waa bulshadii saaka ka howlgalaysay halkan. waxay isugu jiraan degmooyinka gobolka Banaadir, degmo ka mida oo jadwalka ku qorneed isxilqaan waa degmada Dayniile. Thank you so much Abriil Macaan. Dhammaantiin waa idin salaamaya, waan idin mahadcelinayaa. maanta waa isku jabnay oo isku daalay. saaka halkaan imaateen, aniga naftirkayga diyaaradayda dilay noqotay. waxaan idinkaga mahadcelinayaa number 1 soo dhawayntan quruxda badan, jacaylkan, sharaftan iyo cisigan oo ku faraxsanahay meeshaan ku dhashay inaan mar labaad ku soo laabto. 24 ay ugu dambeysay xamar. aragtidiina abshir waxaan idin leeyahay shaqo wanaagsan. aniguna group isxilqaanaan ka mid ahay Soomaa saacada waa idin jeclahay. annaga naftirkeena qurba joogadaan nahay, especially fanaaniinta xamar oo mar kasta la leeyahay xamar waxina soo ku tagay waxa aan ku soo dhiirano oo aan nafteena u soo hurayno waa inaan idinkeeda la faraxno, waxa qabtaan idin la qabno. waa idin jeclahay. xamar aad aan ugu xiiso qabaa, shacabka aad aan ugu xiiso qabaa, dawladda aad aan ugu xiiso qabaa. absolutely maanta meeshaan taaganahay waa tiyaatarkii oo aan weligay arag oo ku faraxsan inaan halkaan imaado. inaa maanta halkaan ii taagneedeen waa idinkaga mahadcelinayaa. thank you so much. waa idin jeclahay, waa kala warqaadan doonaa. love you guys. xidiga Qadar Keyow oo bilihii u dambeeyay weer istaba jooga ka ciyaaraya fanka Muqdisho ayaa 3-0 ku garaacay ciyaartooyga ismidab dhalan rogay ee Dayaxta Nuurshe oo shaxda fankiisu muddooyinkii u dambeeyay hoos u dhac ku jirtay, balse waqtiyada qaar ahaa ciyaartooy siraada fanka magaalada Muqdisho. Qadar Keyow waxa uu banaanka ka qaatay fanaanka sanadka isagoo oo waayay cid boosan ka cidhiisata, waxaana madashii lagaga dhawaaqayay fanaanka sanadka ka muuqatay oo dhuumasho kaga maqnaa fanaanka Dayaxta Nuurshe. Qadar Keyowna abaalmarinta fanaanka sanadka waxa uu ku qaatay saca mabsuud ah, waxaana loo cumaamaday xidiga iyo fanaanka sanadka ama fanaaniinta Muqdisho. Sacdiyo Siman xidigad asturaada madaxeedu dhabarka ka taabtay boqoradihii ninkada iyo qoobka ciyaarka Muqdisho oo habeenkii xamarka seexan weeday, waxaana dhammaantood eber boqolaha ay keeneen imtixaankii fanka. Nadiir Nayrus, Shaadiye Sharaf, Muna Xafiis, Xamdayar iyo xidiga kale oo fankooda Muqdisho maryo la'aan ku siraadnaa ayaa Sacdiyo Siman habaaska ku liqday. waxay ka kor qaaday fanaanada sanadka Muqdisho oo uu u soo hooyay madaxeeda daboolan, waana fanaanada kaliya ee Muqdisho laga soo helay dhinaca asturnaanta, waxayna noqotay boqorada sanadka ama fanaaniinta Muqdisho. dhinaca heesaha wacdaraha dhigay isla markaana suuqa daawashada goolasha yaab kale ka dhaliyay waxaa hogaaminaysa heesta godad leh, waxaana laacibiinta Qadar Keyow, Sacdiyo Siman iyo qaaliladan ay suuqa soo geliyeen 3 toddobaad ka hor, iyada oo muddadaasi ku soo xaraysay daawasho tiro xidhan ah. waxa inay gaadhay darajada 1 milyan oo qof oo daawade. shaxda heestan ayaa ah mid la soo xirfadeeyay. Sacdiyo Siman iyo qaaliladana waxay ciyaarta ku soo galeen garamaanta dumar lala guursaday, halka Qadar Keyowna taarabon iyo sacab la'aan ay ku haleeshay. ugu dambeyn heesta godadle waxay suuqa daawashada ka soo xaraysay daawasho sababtay inay hogaanka u qabato muuqaalada heesaha filkeeda. hogaanka heesaha guulaystayna Nairobi ayaa la caraabtay, iyadoo ay suuqa daawashada fanka ay isku eryanayeen labadii muuqaal ay soo saareen fanaaniinta Dayaxta Nuurshe iyo Marwaan Yare ee halka hees suuqa soo geliyay ayaa waxaa hogaanka milyanka koob ku qaaday muuqaalkii uu soo saaray fanaanka Dayaxta Nuurshe oo heestiisu gaadhay 1 milyan, waxaana garoonka daawashada lagu garaacay muuqaalka heesta Jawi Caashaq ee Marwaan Yare maadaama oo iskoorka heesta iyo guusha ciyaartu ku xidhnay laacibka muuqaalkiisu gaadho darajada milyan. Marwaan Yarena waa looga dheeriyay xadhiga milyanka, khilaafka heestaasina milyanka ayuu ku dhammaaday.
laki xaaji wacays iyo faadumiina ayaa madaxa iskula jira welina suuqa fanka waa laga leeyahay siirwale kala saara waxaana marba marka kasii dambeysa sii kullaan iyo khilaafka labadan fanaan oo ay la kala safteen fanaanin caan ah oo labada xidig u kala noqday weerar iyo warcelis. khilaafka laki wacays iyo faadumiina waxa uu kasoo bilaabmay barnaamijka qooto qooto kadib markii laki wacays ka baxday qooto qooto ciyaartana waxaa bedel lagu soo geliyey faadumiina. halkaana waxaa ka istaarmay khilaafka labada hablood ee fanaaninta ah oo social mediaha isku mariya hadallo weerar iyo warcelisa ilaa fanaaninta Yurub labada dhinac la kala saftaan. waxaana todobaadyadan soo laba kacleeyay dagaalka faadumiina iyo laki wacays oo goolaaftankoodu ka bilaabmay xaflad aroos oo labadaba lagu soo casuumay oo heese isku mid ahna ka qaaday.